doorashada lixaad ee dalkeena Itoobiya ayaa qorshaysnayd inay qabsoonto sanadkii aynu ka soo gudubnay 2012 ee tirsi taariikheedka dalkeena Itoobiya balse waxa dib u dhac ku keenay qabsoomidda doorashada saameyntii ka dhalatay safmarka fayraska corona waxaana qorshaysan in bilaha soo socda ay dalka ka qabsoomi doonto doorashada guud ee lixaad ee dalka haddaba qaar ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee ka qayb galaysa doorashada guud ee lixaad ayaa sheegay inay wadaan u diyaar garowgooda ku aadan ka qaybgalka doorashada guud ee dalka ka qabsoomi doonta bilaha fooda inagu soo haya masha Allah aad baan ugu faraxsanahay in la arko xilli uu dalka ka jiro furfuraan siyaasadeed iyo masrax qaadi kara axzaab siyaasadeed si fiican baan ugu diyaar garownay hadda diyaar garowganagu meel fiican buu marayaa diyaar garow fiican baan sameynay oo tusaale ahaan hadda waxyaabaha ugu horeeya ee la sameynayo waxaa kamid ah in xildhibaanada heer federaal la gudbiyo ee kuwii heer deegaana la soo xulo si fiican bay markaa noogu socotaa waan diyaar garownay ururada u diyaar garoobay baanahay ururadii ka qayb qaatay xataa code of conductiga xeerarka doorashada iyo anshaxa iyo dhaqanka doorashada laga doonayo ururadii wax ka diyaariyay baanahay marka aad baan akhbaartiisa ula soconay waan u diyaar garownay waxa weeye seminaarkii u diyaar garowga doorashada ee xubnaha gobolada ka howlgeli doona baahin doona xeerarka iyo aqoonta iyo xogta iyo hawlaha doorashada ururka dadka fidin doona seminaarkoodii baa hadda la soo gabagabeeyay marka waxaan isleenahay waan dadaalaynaa inaan si fiican ugu diyaar garowno waana 12 gobol waxaa loo ambabaxayaa usbuucan dhexdiisa insha Allah muddadii 27 sano ee la soo dhaafay ayaa lagu sheegay in doorashooyinkii soo qabsoomi jiray aysan ku salaysnayn haba yaraatee cadaaladda isla markaana ay ahaayeen kuwa sidii la doono loo adeegsado haddaba waqti xaadirkan uu dalka ka jiro isbeddel iyo furfurnaan siyaasadeed ayaa waxay asxaabta siyaasadeed ee ka qayb galaysa doorashada lixaad tilmaameen in markii ugu horreysay la filayo inay dalka ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah Itoobiya uma baran doorasho xor ah ma aqaano doorashooyinkii waagii Hayle Silaase sida ahaan jireen anigu wax badan oo laga qorayna ma arag laakiin waxa weeye wixii ka dambeeyana doorasho ma jirin laakiin hadda sida loo diyaar guddiga doorashada nebe sida ay u diyaariyeen iyo code of conductiga dhaqanka laga rabo iyo xeerarka reformka lagu sameeyay xeerarka muxuu ahay doorashada markaad eegto waxaa ku galaysa rajo ah inay doorasho at least in xor ah ay dhici doonto waxaan isleenahay doorashooyintii hore ka duwan baa dhici doonta dadka Soomaaliduna way ka faa'iideysan doonaan ummadaha kale Itoobiya way ka faa'iideysan yihiin saasaan isleenahay doorashada xor iyo xalaal waxaa ka dhigi kara xukuumadda gacanta talada ku haysa dalka ayadoo hadii ugu tala gasho inay competition iyo tartan dhab ah la sameeyo oo cid walba tan ay ku qanacdo waxay keensatay ilaa wax weyn keensanin laakiin sida hadda loo fasaxay axzaabtii loo fasaxo goobii doorashooyinka laga yaabaa inay dhacdo marka hadii dadka xorriyad la siiyo oo choice la siiyo way dhacaysaa laakiin hadii maamulka talada hayay uu ku adkaado waxa laga yaabaa inaynan doorasho xor iyo xalaal ayna dhicin ugu dambeyntii asxaabtani siyaasadeed ayaa ugu baaqay cid walba ay khusayso in la ilaaliyo waxyaabaha lama taabtaanka ah ee ay ka mid tahay ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka isla markaana laga wada shaqeeyo sidii ay doorashadani u noqon lahayd mid cadaalad ku qotonta sidoo kalena waxay shacabka fareen inay noqdaan kuwo codkooda siiya cid ay rabaan waxaan dhihi lahaa oo talo ahaan soo jeedin lahaa annaka oo tusaale ahaan FAB ah ama Freedom and Equality Party iyo BB xisbiga talada hayay iyo axsaabta kale mucaaradka in ay jiraan waxyaabo laba taabtaan tusaale ahaan nabadgelyada iyo doonta cid walba ay doonto marka inuu khalkhal galo inta faa'iido ma jirto aniga kuma jirto xisbiga talada hayana kuma jirto xisbi kale mucaaradana kuma jirto waa inuu jiro marka wax lama taabtaan sida nabadgelyada labo waa inay jirtaa waxyaabo dana guud oo cid walba ay ilaalinayso oo ana ilaalinayo muxuu ahay maamulka talada hayana ilaalinayo mucaaradna ilaalinayo oo laba taabtaan oo hadii aanu aan taabto inta kale oo dhan dhinaciga marayaan taas lafteedu waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo oo la dhaho 1 2 3 4 5 waxaas waa lama taabtaan waxaan dhahay ku tala bixin lahaa inay hay'adihii cadaaladdu ay hadan kuwa oo garsoorkoodii loo igmaday ka soo baxa neebo oo kaliya oo hay'adda cadaaladda nabad soo muxuu ahay maxkamadii guud iyo waxaas oo dhan inayna cidna raacin oo dhadhaxaad ahaadaan taas marka waxa laga badbaadi karaa inayna markaa dhicin
buuq iyo wixii kasii dambeeya oo gacan ka hadal ah marka si taa looga taxadaro waa inay hay'adihii cadaaladuna ay banaanka joogaan xukuumaddiina banaanka joogto axsaabta kalena ay joogaan loo wax loo siman yahay iyo wax la wada leeyahay ay ahaato kadibna in lagu qanco ciddii dee cabasho qabtan cabashadeedii wada sharci ah ay u marto aynan gacan ka hadal ayna samaynin baa ugu muhiimsan marka dawladdan waxaan ugu baaqayaa dadka in dabarka laga furo inay isku kalsoonaato ciddii Soomaaliya ku guuleysato yaa xaq u leh inay maamusho shacbi xor ah oo wuxuu doonto doorta oo is horumarin kara oo dhulkiisa iyo xaqiisa difaaca oo ummadaha nabadgelyo sharaf kula noolaada inaan soo saaraa laga rabaa shacbi baliid oo fulaya oo cabsanayo la kala iibsado oo la isku dirdiro oo dirisyada lagu diro oo nooca inuu noqdo ma baahna marka inaan danta guud ka wada shaqeyno oo doorashadana wada ilaalino danta guud iyo nabadgelyada iyo wada shaqeynta aan ilaalino saasaan ugu baaqay si doorasho xalaal ugu dhacdo taana dadkeena dhan u fiican tahay hadii laga guuleysto oo si fiican u dhacdo dadkeena u fiican tahay hadii cali laga guuleysto si fiican u dhacdo dadkeena u fiican tahay marka jeebkeena ka tabayna markuu dadkeena doorasho fiican oo nadiif ah iyo hanaan fiican loo galo dawlad wanaagsan baa ka soo bixi dadkoo dhan bayna anfici miyi iyo magaalo muxuu ahaa xisbi hebel iyo xisbi hebelba kulli way anfacaysaa